بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kusoo jirnay cashiradeenii aynu uga hadlaynay Adobe Illustrator gaar ahaan qaybtiisa toolska ayaynu kusoo jirnay maanta casharkeena waxaan uga hadli doonaa haddii la yidhahdo tool aad u muhiim ah oo loo yaqaano Pathfinder tool. Toolkaasina maanta sida loo isticmaalo aynu arki doonaa haddii la yidhahdo. Pathfinder toolku waa halkan uu ku yaalaa meeshan qaybtan panelska ayaad ka arki doontaa. Halkaasaad ka soo saari doontaa hadduusan kuu joogin markaas window waad tegi doontaa. kadib halkan waxaad ka raadin doontaa Pathfinder kadib halkaasaad ka soo saaran doontaa. marka hadda halkan uu yaala marka ilaa dhowrkan qaabab ka kooban yahay ilaa 10 qaab meelahaas weeye mid walba iyo marka qaabka loo isticmaalo ayaynu arki doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. marka si aynu u fahanno aan shape soo qaadano shape markaas u soo qaadano qaybtan ugu horeysa kadib isagaan copy ka bixinaynaa alt intaan qabano ayaan la jiidaynaa wax yar kan aan wareejino 45 degree kana sidoo kale marka labadan shay hadda aan sidan u haysano qaybtan ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa unite labadan shay oo sidana ayuu isku ka dari doonaa marka unite uu midayn doonaa marka hadaan ku dhufano marka hal shay buu isla noqday hadii marka wax kale oo kan kasii koobiyeyso mid kale kusii darto halkan dhigto ana mid kale kasii koobiyeyso halkan dhigto shay noocaas oo kale macnaha hadaad u baahato wuxuu ku samayn doonaa unite wato hal xabo kaaga dhigi doonaa marka hal shay way hadda isku wada dhigeen waa hal shay unite marka qaabkaas uu shaqeeyo tusaale hadda hadaan ellipse tool soo qaadano xagan ku sawirno marka shaybkan imika hadii aad u baahan tahay marka in lagu midayo oo shay noocaas kale aad u baahan tahay waxaad samayn kadib halka unite kuma dhufan marka hadda hal shay buu ku yahay saas oo hal shay kugu yahay oo kalarkii aad u baahato wax walba geli kartaa isla isagoon buu sii ahaanaya marka kalarkaagi noocaas oo kale marka labaad fahmi doona waxa weeye waa main front saan fahnay isla kan waa soo qaadanaya kan waxaa yar soo weynaa ellipse tool baan soo qaadanayna marka sida ugu sawirno hay'ad baan saarayna marka minus front waxa weeye si aad fahantii isaga shape-kan korka ayaa ka hoose lagu jiro doona marka meeshaas dulaal bay noqon doontaa sidoo kale dulaal iyo waxaas u baahan tahay inaad samaysto minus front u baatiin marka hadda kaasa qaabkaas lagu dulaal hadii wax kurka laga shanayo hadii aad baahan tahay inaad samayso halkaas oo kale tusaale kale hadda isla halkan dad baahatay inaad wax kale ku samaysto tusaale halkiisa aan ku samayno aan wareejina 45 degree kalarkiisa marka aan yar bedel wax yar aan arki karno halkan dhexda dhigana marka kadib qaybtan marka casba waxaad rabtaa inaad ka weyn ku jirto waxaa sameeyno minus front u badan kadib marka qaabkaas lagu jaro taas oo kale u shaqeynaya sidoo kale waxaan fahmaynaa keenoo xiga waa intersect isaga saan fahmay waxaan soo qaadanaa sidoo kale shape ellipse tool halkan aan ku draw gareyna copy aan ka bixinaynaa intiwada wax yar sax marka intersect-gani wuxuu ku qaban doonaa waxa weeye labadan shay meesha ay iska galaan oo iskaga yimaadaan oo inta ayuu ku jiri doonaa marka labadan qaybood oo kale ayuu ka saari doonaa marka wuxuu ku soo reebi doonaa qaybtan labadan ay iskaga jiraan marka minus front hadaan dhahno wakaas caleen tusaale kale dad baahan tahay inaad samaysto qaabkaas oo kale aad soo samaysan doontaa laba shay baad ka samaysan kadib dad baahato waxaad oran doontaa transform ka dhahdo marka waa aragtay caleenta hadda imika waxaan ka samaynaa ellipse tool laba ellipse tool oo isku geynay oo markaan inta wax kale kuma inaan samayn ellipse tool intaan soo sawirnay draw gareynay ba waxaan samaynay inaan copy ka bixinay isaga copy ka bixinay ba waxaan samaynay minus front uma dhahan marka saas uu inoo soo saaray marka waxay noogu xigaan arki doonaa exclude isagu waa opposite ka minus front halkii minus front uu ka jiray inta intersect-ga ay iskaga yimaadaan exclude wuxuu ka jiri doonaa isagu inta iskaga yimaadaan ba inta dhex tusaale tan marka exclude ku dhufano marka wakaas intaas ayna laga saaraya shay noocaas oo kale dad u baahato Pathfinder kuma ku samaysan doonta inkastoo toolkan aan hore u sheegnay uu aad u muhiim yahay oo wax walba u baahata aad si ku samaysan kartid marka exclude qaabkaas oo kale u shaqeeyaa waxay noogu xigaan arkaynaa divide wax kale maaha uu qaybin tusaale tan imka divide ku dhufano waxaan imka saddexdoodu waa kala qaybsan tusaale tan marka aan group dhahno group base ku yinaada qaybtan halka ma dhigi karnaa qaybtan sidoo kale halka ma dhigi karnaa qaybtan halka sidoo kale hadda waxba inagama saaray divide uu kala qaybinayaa hadda minus front iyo include halkii ka ahay inuu ku kala jarjaro marka ma qaybtiisa yimaadaan ka saar ama qaybtiisa yimaadaan uu ku reebo kan marka divide ku soo waxa weeye uu ku kala qaybinayaa waxay noogu xigaan arki doonaa marka trimka saad u fahantaa tusaale aan kanadaan ku dhahno trim ku dhufano hadda aan group dhahno wuxuu inoo samayn doonaa sida marka waa ujeedaa marka wuxuu labadiisa isagu minus front laakiin minus front wuxuu kala duwan yahay wax yar soo qaybtii kale ee uu ka jaray uu ku reebaya marka oo mana tagayso tusaale kale imka hadaan minus front dhahno qad waka qaybtii kale naga saaraya laakiin
streamku waa isla sidaas oo kale uun laakiin isagu kaama tuurayo qaybtii kale aad ka jartayna way agoolaysaa marka ungroup hadaad dhahdo qaybtan labada way kala jiran yihiin laakiinse kii aad wax ku jaraysay kaama qaadayo isaguna marka meesha uu oolayaa marka waxaynu ugu xigan arkaynaa merge qaabka loo isticmaalo so waxa weeye sidaad macnaha ka dareemayso wuu isku wada geyn doonaa isagoo united oo kale uu lamid yahay haddaan imika saas u dhahno waa united laakiin united wuxuu kaga duwan yahay baa jirta isagu oo ay uusan samayn karin isagoo mararka qaarkood tusaale kale haddaan kan kalarkiisa ka bedelo kan kalarkaasoo kale haddaan ka dhigno waan hadda merge dhahno tusaale kale waa ujeedaa ungroup aan dhahno marka waa isagoo iskuma geynayo haddii waxay sababtu waxa weeye haddii kala kalar yihiin shaybiskana aad merge dhahayso iskuma geyn kara isagu laakiin hadda layago sidan u kala duwan oo macnaha mid walba kalarkiisa goonida wato haddaynu unite dhahno wuu isku wada geyn doonaa macnaha isagu laakiin kani wuxuu uga duwan yahay merge waxa weeye wuu isku geyn laakiinse wixii isku kalara iskuma geyn kara wixii hadday kala kalar duwan yihiin iskuma geyn kara isagu marka hadda unite bay ku yihiin oo haddaad ungroup dhahdo laakiin waa mid walba gaarkiisa u qaadan kartaa marka intaasay kala duwan yihiin isaga iyo uniteka iyo merge qaabkaas u kala duwan yihiin mid walba uu isugu kaageyn shaybiska laakiin merge wuxuusan qaban karin haddii ay shaybiskani ay kala kalar duwan yihiin isaga uu iskuma geyn karay marka waxaynu wuxuu arkaynaa crop toolka marka isaga saa u fahanto wax yar waxaan soo qaadaynaa line tool baan soo qaadaynaa marka stroke baan ka dhigaynaa strokeis yar madow wax yar baan yar weyneynayna marka dib halkan effectskan tagaynaa effects and transform zigzag baan odhanaynaa marka meeshan baa waxaan ka dhiganaa wax yar xogaa sizeka cabirka aad u rabtay inuu laalaab kuu noqdo ayaad halkan ka dooran doontaa taasaan iskaga dhaafayna halkana sidoo kale inta aad rabto laalaabkan iyadoo tiradooda intay noqdaan halkaas cabirka si ay u kala fogaayeen buu ahaa kanna waa intaad u baahantay inaad ka dhigto sidoo kale halkan aan 8 ka dhigno marka halkan corners oo kale smooth baan ka dhigaynaa marka qaabkaas oo kale hadda inoo yahay marka hadda imika shaybkaas oo kale aan soo qaadano waxoogaa haddaan u baahna kalarkiisa aan bulu ka dhigno si aad ila fahanto waxaan u baahnay inaan sameeyo marka hadda strogan ayaa waxaan ka dhigaynaa shape hadda objective aan tegaynaa expand appearance objective aan ku laabana mar kale expand halkan iyadoo markii kuu soo baxdo fill iyo stroke ayaad okay doo oran doontaa marka hadda markuu kale sidan kuu yahay waxaan sameynaynaa wax yar dhowr shape koobi ka bixinaynaa ilaa 4 jeer waxoogaa meelahaas sidaa markaan koobi uga bixino ayaan group baan isku oran doonaa dhammaantood markaan group isku dhahno ayaa waxaan soo dooran doonaa shapeka marka fill waxaan u bedelanaa stroke fill buu naga yahay alignment waa masaxaynaa marka hadda iyagoo saas waxaan samayn doonaa waxa weeye halkan shapekan kore ayaa intan shapeska lagu jiro doonaa marka halkan isagoo sida hirka badda oo kale ayaa ayuu kuu samayn doonaa marka haddaan iminka crop ku dhufano haddaan ku dhufano iminka waa ujeedaa waxaana laga saari doonaa qaybihii kale oo dhan qaybteenii kore halkan waan haysanaa haddaan iminka tusaale ungroup dhahno qaybtaas kore aynu tagno aan ka bedelno filka kan aynu siino waa ujeedaa hadda qaabkaas oo kale shape noocaas oo kale aad samaysa marka cropkuna qaabkaas oo kale u shaqeeya isaguna tusaale kale halkan cadceedii oo kale waad ka dhigi kartaa haddaan waan samayn karnaa macnaha iyada laftigeeda oo hadday aynu bishii u baahannahay inaan samayno iyadana ellipse tool baan ku samaynaynaa ellipse tool markaas usoo darowgarayno si aynu bil u samayno aynu marka kan mid kale koobi ka dhahno alignmentgeeda wax yaraan saxno marka hadda sidii aynu bil u samayno waxaanu samaynaynaa highlight markaynu saarno bil midkaynu ku samaynayno waa garan minus front baan dhahaynaa minus front markaan dhahno qaybtaa kalena laga saari marka qaybtan wax yar aan yarayno sidoo kale xidig haddaan u baahna xidig shapeska caadiga ku jirta iyada marka halkan baad qaban doontaa marka alti la qabo si ay xidiga caadiga kugu samaysmato sidoo kale inoogu xiga outlineka marka isaga saan u fahno waxaan soo qaadanaa shape rectangle marka outlineka wax kale maaha filkan wuxuu kugu bedeli doonaa stroke haddaan marka outline ku dhufano marka waa kaas laakiin haddaad ungroup dhahdo mid walba gaarkiisa aad u qaadan kartaa markaas waxyaabaha sharaxaad iyo waxaas aad u baahan tahay ayaad ku samayn doontaa isaga mid walba goonidiisa ayaad u qaadan kartaa marka isaga waxyaabaha sharaxaad iyo waxyaabahaas haddaad u baahato markaad samaynaysid ayaad iyaga isticmaali doontaa marka halkan aad ka kordhin kartaa strokegooda marka oo noocaad u baahato
ayaad ka dhigan kartaa marka qayb walba goonideeda ayaad u qaadi kartaa marka waxay noogu xiga arkaynaa minus back marka isagana si aan u fahno marka inoogu dambeeya arkayna waxa weeye marka minus back si aan u fahnaysa waxa weeye marka labadan shay midkoodan dambe baaga xagga dhabarka xiga oo labada hadda marka labada shay marka la yiraahdo midkooda koreeya waa kan yelowga kaa kale greenka ama cagaarkiina isagoo ugu dambeeya marka kaa kaloo intan kaaga jiri doona marka oo isagu kaas kaa qaadi doonaa hadda markaan minus back dhahno ka dambe u jiri doonaa minus front marka cagsigeedin weye minus frontku kan hore intiisa laga jiri doona marka iyo labadaas intaas mid kala duwan minus front qaybtan hore minus back iyadana qaybta dambe uu ka jiri doona marka halkaas aynu ku ekeynaa cashirkeena aynu uga hadlaynay Pathfinder toolka iyo sida loo isticmaalo tool aad muhiim ah oo shay walba aad ku samaysan kartid marka khayr badan baan idin rajaynayaa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk